siyaasiyiin xildhibaano aqoon-yahano salaadiin iyo dhalinyaro kasoo jeeda beesha Sheeqaal ayaa maanta dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in beesha Sheeqaal aanan lagala tashan maamul u sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. Mas'uuliyiintan qaarkood ayaa saxaafadda u sheegay in beesha Sheeqaal ay degto inta badan gobolada dalka Soomaaliya, madaxda dowladda Soomaaliyana ay sameysay xadgudub loo geystay beesha oo ku saleysan in beesha Sheeqaal la duudsaday xaqooda. waxaan leenahay madaxweyne xasan sheekh annaga deegaankaas haddaan hadda masalan soo qaad Caradheere waa degmo ka mid ah degmooyinka Mudug laba xarig baa wax loo qaybsan jiray xarigna waxa iska lahayd Habargidir xarigna waxa isla Sheeqaal wada socday hawyana waa sidoo kale saasa laba xarig wahayd xarig baa anagu lahayn gaalkacyana sidoo kale marka maanta in la yiraahdo inta awal dawladnimadina la ka qadiyay oo aan ka aamusnay waa ninkii ugu horeeyay madaxweyne xasan sheekh beesha Sheeqaaleed meel cidla dhiga shariifkii ragga ka horeeyay hal bay ku tuuri jireen xasan wuxuu halkii waa cishta marka waxaan leenahay warka waa dheereeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dawladda miyaysa ku jiray alaysa minkum rajul rashiid miyaysa ku jirin waxaan leenahay annagu horta dawladdu marka koowaad maalin walba in shay xaqiraada la taagnaado waa aan diidnay waa marka koowaad marka labaad madaxweynihii la soo doorto ama ra'iisul wasaarihii meesha la keeno xaqiraad wuxuu ka bilaabaa Sheeqaal war waxaan rabnaa ra'iisul wasaaraha maanta jiro ama madaxweynaha maanta joogo oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiwali Sheekh Axmed oo ra'iisul wasaare ah annagu maanta waxaan sugaynaa Sheeqaal markaan nahay hormuudka waxaan nahay Mudug iyo Galgaduud sababtoo ay tahay meel aanan deganin ma jirto tuulo walaa degmo annaga degan weligaan annaga dawlad nagu ma xaqirin cid nagu xaqirtahay ma jirto madaxda wadanka degan markay dawladdu ay soo korayaan kursiga annagoo aanan idmin weligood kursi ma aysan korin maantana waxa dhacay maba deganin in la yiraahdo wadanka ma aqbali doono mana aqbalayno jawaabaha dambe oo aan ka bixi doono haddaysan dawladda ka noqonin arrimaha ay wado sababtoo ay tahay wax badan la xaqiray wax badan la diiday laakiin waxa looga doonaa ninkii doorasho u soo istaagay madaxweynenimo soo raadiyay haddaan dhulka degannahay haddaan cirka degannahay maalintaas ogaana nin walba xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Aadan Sandheere oo kamid ah xildhibaanada maanta kulankaasi ka soo qayb galay ayaa isagu sheegay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay in waqtigan beesha Sheeqaal ay kaga mid dhigto maamulka loo sameeyo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed iyo beeshaanba inaysan ahayn wax aan ku faraxsanayn aysan ahayn waxna farxad gelisay haddana kuma faraxsanin laakiin waxaan leenahay waana la gaarsiiyay wasiirro dhowr ah oo aan shaqo qaran meesha ka qabanahayn oo la yiri waa guddi oo 4 ah iyo 3 maamul odayaashooda 3 maamul waxba uma haysano wasiiradaasi ma ahayn wasiirro qaran shaqo qaranna ma ay sameeynahayn wasiiradaas waxay ahaayeen wasiirro nin walba uu u cantoobinayo reerkiisa dadka aan diidnay waxa ay keeneen waa dadkaas maandeedna uma balehba sharci ahaan uma leh ninku hadduu qabiil noqdo shaqo qaran ma qaban karo waxa aan diidnay oo aan gogosha madaxda qaran ku fadhido iyo beelihii daga gobolada dhexe aan uga soo baxnay waxay arintaas waxaan iri joojiya 3 goor 4 goor aan dignay waxaana la yiri 2 goor baan la ku seexiyay xibno aan jirin sida uu sheegayay walaalkay ugaaska Axmed Cumar waxa weeye beel aan qayrinahayn ma jirto annagu laakiin waxaan nahay beesha kaliya oo ka soo baxday iyadoo mikrofoonkii shirkaas marka la daaray dadka oo dhan oo beesha deganna waa og yihiin inaanan ahayn dad dawladdu dumiya dad ka hor yimaada Soomaali wax loo dhisaayo laakiin waxaan diidnay habeenkaas haddana aan diidanahay birina diidi doonaa wixii ku dhisan dulmi waxaan madaxda qaranka ku iri iyo guddiga xarafkii cid reerkan waa taqaano maamaayadu waxa weeye waa kulli waa diini annaga caruur waxaan la baranaga xarafkii ku qalloocda alif ku qalloocda albaqra kuma tooso maamul sameynta gobolada dhexe waxaan anigu aaminsanahay in laga leeyahay dan kale ee aan loo wadin meeshii ay aadi lahayd waxaanad ku garataa sida loo maamulay waxaan leenahay ha laga noqdo
dhulka hala dhigo dadka u ah ehel wax qaybsiga ama yaqaana dadku sida loo kala degan yahay ha qaybiyeen madaxda dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan siyaabo kala duwan Muqdisho kula shiray madaxda maamul goboleedyada Galmudug State iyo Xibin Xeeb iyadoo oo waxa ugu badan oo mas'uuliyiintaasina lagala hadlayay ahayd sida labada maamul loo mideen lahaa. Aways Maxamuud Jilco, Royal TV, Muqdisho.